Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya oo saaka soo gaartay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Maxamed Xuseen Roble iyo Rijal Omama ayaa ka wada hadlay sare u qaadidda iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed u dhexeeya labada dal ee deriska ah ee Soomaaliya iyo Kenya. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa wasiirka arrimaha dibadda Kenya ka guddoomiyay casuumad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo deris ah oo ay ka dhaxeeyaan dano badan sida diblomaasiyadda, amniga iyo arrimaha dhaqaalaha. Xukuumadda Soomaaliya ayaa caddeysay mowqifkeeda ku aaddan dacwadda badda ee u dhaxeysa labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, waxayna sheegtay in kiiska badda uu yaallo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ iyadana laga wardhowrayo. Filo Soomaaliya ayaa xalay soo saartay digreeto ay madmadow ku gelinayso wadahadallada u dhexeeya Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo dowladda Kenya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa inuu ka degi doono magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Waxaa in muddo ahba xumaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya ka gaaray IGAD iyo Midowga Afrika, inkastoo aan weli xal sidaa u buuran laga gaarin.